hay-adaha dastuuriga dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dhamaystirka sharciga dadka naafada ah si loo ilaaliyo xuquuqda dadka naafada ah si ay u helaan cadaalad sida dadka kale sida uu farayo qodobka 4 ee heshiiska xuquuqda dadka naafada ah ee qaramada midoobay si dadka naafada ah ay u helaan cadaalad dhameystiran ay u adeegsadaan baahiyooda gaarka ah waxaa laga codsanayaa qaybaha kala duwan ee garsoorka dalka inay siiyaan shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha garsoorka sida howlwadeennada xarumaha garsoorka biliiska shaqaalaha xabsiyada lana siiyo tababar ay ugu adeegaan dadka naafada ah sida uu qabo cutubka 13aad ee heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada ah waxaa laga codsanayaa culimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed in ay u istaagaan difaacidda iyo ilaalinta sharafta iyo xaq-dhawrka dadka naafada sida ay xusayaan shareecada Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed